dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay geysay magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad dheeri oo halkaasi ka imaanaya. Ciidamadii lafta gareen oo galay difaacii ugu dambeeyay waxay doonayaan inay weerar kala duwan ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe maalmo kooban uu gaaray magaalada Baydhabo maalinimadii shalay ahayd waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada maamulkaasi. Shirka amniga golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayaana ka dhacay aqalka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad dheeri iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dhinaca maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud waxay qaadatay go'aano culus oo ku aadan in ciidamo dheeraad ah ay geysho magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulkaasi. Soo dhawaada saaxiibayaal, waa maalinimo Isniin taariikhdu ku aasaysantahay 24 bisha 8 Agoosto sanadu waa 2020 aynu ku bilowno magaalada Baydhabo. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay geysay magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. garoonka shaati gaduud ee magaaladaasi maanta waxaa ka degaya ciidamo aad u fara badan oo ay dowladdu ay ku doonayso in markaasi xal loogu helo weerarada ciidamadii Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulamo ka dhacay villa Soomaaliya oo markaasi dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo sidoo kale hogaamiyaha ku-meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo looga hadlayay weerarada aan xal loo helin ee ciidamada lafta gareen ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ayaana xilligan waxaa markaasi warar soo baxaya ay tilmaamayaan in ciidamo markaasi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya laga deji doono maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhinaca kale xooga hubeysan oo markaasi uu horkacayo afhayeenkii hore ee maamulka Koonfur Galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo gadaal uu ka riixayo taliyihii hore ee ciidankaasi Sultan General Mahdi Cabdiraxmaan Aadan Taliye Shuba. madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa lagu soo waramayaa in markaasi iyagu ay helayaan gurmidyo kala duwan waxayna doonayaan in weerar kala duwan ay ku qaadaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xiisad kacsan ayaa haatan laga dareemayaa magaalada Baydhabo. wararku waxay sidoo kale ay tilmaamayaan in Baydhabo aan xal loo helin dagaalada markaasi lafta gareen uu ku qaadayo magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhawaan ayay ahayd markii magaalada markaasi Galmahare oo ka tirsan gobolka Gedo ciidamo kasoo baxay ay gaareen magaalooyinka ama duleedka magaalada Baydhabo oo markaasi ka socda madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe oo la sheegay inuu garab ka shaqeynayo lafta gareen sidii meesha looga saari lahaa Cabdicasiis markaasi heraade Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe hogaamiyaha doorashada khilaafsan kaga soo baxay magaalada Baydhabo. Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe doorasho markaasi la isku khilaafay ayuu ka soo baxay magaalada markaasi maamulka Koonfur Galbeed waxaana ka guuleystay madaxweynihii hore maamulkaasi Shariif Sheekh Xasan oo markaasi loo yaqaano Shariif Sakiin oo isagu qaadacay doorashadan. Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe waxa uu sheegay inuu xal u heli waayay doorashadan ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah markaasi xeeraada dagaaladan ciidamada lafta gareen ay ku qaadayaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku-meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Koonfur Galbeed weerar kala duwan ayaa lagu qaaday dhawaan ayay ahayd markii ciidamadii markaasi taabacsanaa lafta gareen jab xoogan lagu gaarsiiyey weerar ay kusoo qaadeen magaalada Baydhabo. haatan dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ayay u daabushay magaalada Baydhabo waxaana la tilmaamay in howlgalo dheeri ay qaadi doonaan ciidamada barmadka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa ka socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo doonaya in weerar kala duwan ay ku qaadaan ciidamadii Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo horkacayo afhayeenkii maamulkaasi ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan duleedka magaalada Baydhabo iyo sidoo kale aaga kale oo markaasi kamid ah maamulkaasi. xiisad kacsanaana ayaana haatan laga dareemayaa magaalada Baydhabo. dowladdu dabcan markaasi waxay sheegtay in markaasi culeysyo kala duwan ay kala kulmayso gobolada Shabeellada Dhexe, Jubbada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan oo koox dhalashay ay ku sugayaan. hase haatee waxaa dhinaca kale lasoo warinayaa in culeysyo kala duwan ay iyaduna kala kulmayso maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Puntland. maamulka Puntland isagu xarkaha ugu jiray dowladda dhexe federaalka ciidamadii BSF ay ku guuleysteen oo gudaha isaga saaro balse maamulka Koonfur Galbeed ee Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe xal ayuu u heli lahayaa ciidamada lafta gareen ee markaasi weerarada kala duwan ku qaada oo iyagu sheegeen xaq dareer u yihiin markaasi duulaanka qaawan oo madaxweynihii hore ee markaasi dalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo qaaday waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxay sheegeen in markaasi gebi ahaanba inuu dulqaadan doono iska saari doonaan
ciidamada warkacayo hogaamiyaha maamulkaasi shaqaada nuuraadan midoobe waxyaabaha ka soo kordha xiisada maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada maanta la filayay inay gaaraan magaalada baydhabo halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa